bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah xogta musharaxiin lagu wado inay isaga haraan tartanka doorashada somalilan oo xukun dil ah ku riday sarkaal dil u geystay gabar dhalinyaro ah iyo Kenya oo heegan gelisay ciidamadeeda kadib weerarkii Ceelbaraf qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadeen ugu xiran idiin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadaan like na inagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen hadaynu ku bilowno musharaxiin badan ayaa lagu wadaa inay isaga haraan tartanka doorashada madaxweynaha waxaa magaalada Muqdisho ka socota diyaar garowgii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha iyadoo loo ballansan yahay inay dhacdo axadda toddobaadka soo socota ay bishu ku aasaysan tahay 15 bisha May musharaxiin ka badan 20 ayaa u taagan xilka ugu sareeya dalka iyadoo maalmaha soo socda ay kala cadaan doonaan musharaxiinta ay dhabta ka tahay tartanka xilka iyo kuwa ay magaca ku raadinaya sida uu ogaaday Runsheeg TV musharaxiinta qaar ayaa qorsheynaya inay isaga haraan tartanka doorashada kadib shuruudo adag oo loo hordhigay musharaxiinta isu soo taagay xilka madaxweynaha kuwaas oo aysan buuxin karin sidaasna ay u soo afjarantay rajadoodii musharaxnimo oo ay kaliya ku doonayeen magaca qodobka ugu culus ee walaaca ku abuuray musharaxiinta qaar ee aysan ka gudbi karin ayaa noqday inay keenaan saxiixa 20 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya qodobkan ayaa ujeedkiisu yahay in lagu kala reebo xubnaha magaca uu ka raadinaya in ay musharaxiin noqdaan waxaana durba muuqata in uu reebayo musharaxiin badan kuwaas oo aan heli karin 20 xildhibaan oo saxiixa ama in ay taageersan yihiin saaxiibayaal waxaa xusid mudan in kol hore ay isku dayeen musharaxiinta qaarkood inay doorashada Soomaaliya oo tan madaxweynaha ugu dambeeyay ay dib u dhigaan balse cadaadis badan oo kaga imaanaya beesha caalamka ayaa lagu khasbay inay dadajiyaan doorashada dalka inkastoo horey ay u sheegeen in ka badan 30 siyaasiyiin ay yihiin musharaxiin haddana waxaa la filayaa in liiska kama dambaysta uusan ka badnaan 20 sida aan xogta ku helayno Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa noqday musharaxii ugu horeeyay ee shalay isdiiwaan geliya isla markaana qaata shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha waxaana ku xigay 9 kale taasoo tirada guud ka dhigtay 10 musharax inay isdiiwaan geliyeen shalay saaxiibayaal 10kan musharax ay isdiiwaan geliyay ayaa dhammaantood waxa ay ka soo jeedeen hal beel taasoo muujinaysa in uusan tartanku dhinacna u dhaafi karin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama codadkaasi uu ku xisaabtami karo sidoo kale musharaxiin kale ayaa lagu wadaa inay iyaguna maanta tagaan xarunta ay ka socoto isdiiwaan gelinta si ay u qaataan shahaadada iyadoo sidoo kale la guda geli doono doorashada gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sabtidii soo saaray abraacyo iyo shuruudo laga rabo musharaxiinta doonaysa inay tartamaan kaasoo durba u muuqda inuu kala reebayo musharaxiinta qaar saaxiibayaal doorashada Soomaaliya waxay ku sii siqaysaa amaba loo dhawaanayaa maalinta loo madlan yahay in teendhada afisyoona la isugu yimaado 20 musharax ayaa loo badinayaa inay teendhada tagi doonaan una badan hal jifo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa saansaanteeda waxaa muuqata in uu soo laabanayo maadaama Xasan Cali Kheyre iyo Sheekh Shariif bay heshiis u dhex maray taasoo muujinaysa in mucaaradka dowladda ay hadda qarka u saaran yihiin in laga guuleysto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa loo badinayaa in wareega koowaadba uu helo codad badan kuwaas oo suuragelinaya inuu tartanku halkaasi ku soo afjarmo iyadoo oo wareeg labaad la aadin sida ay bulshada Soomaaliyeed filayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
oo xalay jeediyey qurbad aad u qiimo badan ayaa tilmaamay in qorshaha ugu weyn uu isu soo taagay ama uu mar labaad u doonayay in xilkani uu qabto ay tahay baaq uga yimid bulshaweynta Soomaaliyeed sidoo kalena uu hadda aqbalay baaqi ka yimid bulshada Soomaaliyeed haddana diyaar u yahay in halkiisii uu ka sii socon doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xalay waxaa ka muuqday kalsooni fara badan waxa uu doonayaa in mar kale ay ummadda Soomaaliyeed helaan hoggaanka ugu wanaagsan kaasoo ah inuu isagu dalka sii hogaamiyo 4 sano soo socota si dalka loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. mucaaradka dowladda hadda waxay ku jiraan rajabeel waxayna qaarkood qarka u saaran yihiin inay isaga haraan tartanka doorashada madaxweynaha. saacadaha ugu dambeeyay doorashada ayaa la filayaa in ay dhacdo kala wareeg aad u weyn iyada oo qaar ka mid ah mucaaradka ay hadda u wareegayaan dhinaca villa Soomaaliya maadaama ay arkaan in madaxweyne Farmaajo uu soo laaban karo mar kale. qodobada kale aan saaxiibayaal idin haynana waxaa ka mid ah Somaliland ayaa xukun dil ah ku riday sarkaal dil u geysay gabar dhalinyaro ah. maxkamadda ciidamada militariga Somaliland ayaa maanta xukun dil ah ku riday gaashaanle dhexe Saalax Buubaale Jaamac kaasoo 3 bishan xilli habeenaa magaalada Hargeysa ku dilay Najma Cabdullaahi Michael oo ka tirsaneyd shaqaalaha wasaaradda beeraha Somaliland. sarkaalka dilka geystay ayaa rasaas ku furay gaari ay wadatay Najma Cabdullaahi Michael oo la sheegay in xilligaasi u diyaar garoobaysay guurkeeda isla markaana suuqa ka soo doonatay agab ay ka mid tahay arooskeeda. goobta maxkamadeynta sarkaalka dilka geystay ayaa waxaa ku sugnaa saraakiilka ehelada marxuumada iyo sarkaalka xukunka lagu riday iyo dad kale. dhowaan ehelada marxuumad Najma Cabdullaahi Michael ayaa xukuumadda Somaliland ka codsaday inay cadaalad u helaan dilka gabadhooda taasoo ugu dambeeyay la fuliyay. Somaliland ayaa waxaa aad ugu yar dilka ay geystaan askarta dadka shacabka waxaana inta badan laga toogtaa askarta sida ku dalagalka u dila dadka shacabka. qodobada kale aan saaxiibayaal idin haynana waxaa ka mid ah dowladda Kenya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda kadib weerarkii Ceelbaraf. dowladda Kenya ayaa lagu soo waramayaa inay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda kadib weerarkii xoogganaa ee toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidanka Burundi ee ku sugnaa deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. laamaha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in ay ka feejigan yihiin weerar ay qorsheyn karaan inay xoogagga Al-Shabaab ka fuliyaan gudaha dalkaasi. waxaan fahamsanahay inay isku dayi karaan in ay weeraraan bartilmaameedka Kenya kadib roobabkii ka da'ayay qaybaha waqooyi ee dalkaasi Kenya ayuu yiri sarkaal la hadlay warbaahinta maxalliga. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay helayaan macluumaad ku aadan xogahaasi in Al-Shabaab ay qorsheynayso weerar ka dhaca xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. sarkaalkan oo qariyay magaciisa ayaa sidoo kale xusay inay adeegsan doonaan sirdoon heer sare ah isla markaana ay bilaabi doonaan howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo cusub. waxaan isticmaalaynaa sirdoon si aan ula socono dhaqdhaqaaqyada gudaha Soomaaliya waan ognahay sida ay wax u socdaan waxaana lagu wargeliyay in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ku wajahan xadka ayuu yiri hadalkiisa sii raaciyay sarkaalkan Kenyaanka. kooxda Al-Shabaab ayaa marar badan weeraro culus ka fulisa gudaha Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari halkaas oo ay ka taagan tahay cabsi la xiriirta weerarada sii kordhaya. si kastaba feejignaanta la geliyay ciidamada Kenya ayaa daba socota kadib markii khasaaro badan dhaliyay lagu qaaday ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS oo askar badan looga dilay weerarkaasi oo ku bilowday qarax ismiidaamin ah. waag saaxiibayaal intaas ku soo gabagabeynaa warkaad ka daawanaysaan Run Sheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan laakiin aan igu dhiirigelisaan kamalaalka furataan surbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka leh.